kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo adduunka ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub. Muuqaalkan waxaynu ku soo qaadi doonaa isbarbardhig lagu sameeyay Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi rikoorkooda tartanka koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi ayaa shaki la'aan ah labada ciyaaryahan ee ugu fiican taariikhda Champions League. Waana sheekada aynu maanta eegi doono. balse intaana sii gudagelin muuqaalkan waxaan idinka dalbanaynaa inaad like inoo saartaan siina gudbisaan. mahadsanidin. Labada xidig ee Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi waa labada ciyaaryahan ee kaliya kuwaasoo 100 gool iyo wax ka badan ka dhaliyay tartanka koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. waana labada gool dhaliye ee abid ugu sareeya tartankan UEFA Champions League. xidigii hore ee kooxda Real Madrid haddana ka tirsan Manchester United ee Cristiano Ronaldo ayaa ku jira booska hore isagoo 140 gool ka dhaliyay tartanka UEFA Champions League. waxa uu tartankan ku guuleystay 5 jeer, hal mar oo uu la qaaday Man United iyo 4 jeer oo uu kula guuleystay kooxda ka dhisan caasimadda Spain ee Madrid. laakiin kor uma qaadi doono koobkan mana kordhin doono goolashiisa tartanka UEFA Champions League xilli ciyaareedkan 2022-2023. Ronaldo waxa uu kal ciyaareedkan ka ciyaarayaa meel ka baxsan tartanka koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League markii ugu horeysay xirfadiisa ciyaareed isagoo matalaya Manchester United. waxaa la soo wariyay inuu jeclaan lahaa inuu ka tago garoonka Old Trafford suuqii kala iibsiga xidigaha ee xagaagan isagoo raadinayay koox markaa u soo bandhigta inuu ka sii ciyaaro tartanka ugu caansan qaaradda Yurub ee UEFA Champions League. runtiina waa uu ku guuldareystay inuu helo kooxdaas isagoo hadda markaa Manchester United kala ciyaaraya koobyaraha Yurub ee UEFA Europa League. 37 sano jirkan reer Portugal waxa uu ka walaacsan yahay in rikoorkiisa tartanka UEFA Champions League uu soo qabto oo uu dhaafo xidiga ay muddada dheer xafiiltamayeen ee Lionel Messi. Messi ayaa isaguna isha ku haya inuu kor u qaado koobka dhagaweynaha ee UEFA Champions League markiisii shanaad xilli ciyaareedkan. waxaana markii ugu horeysay ee uu ku guuleysto tartankan UEFA Champions League ay ahayd isagoo aad u da'yar sanadkii 2006 markaasoo dhaawac looga saaray marxaladihii ugu dambeeyay ee heerka bugbaxa sanadkaas. markaas kadib waxa uu Messi udubdhexaad u ahaa guulihii koobkan ee kooxda kubadda cagta Barcelona isagoo kula guuleystay sanadihii 2009, 2011 iyo 2015. laba ka mid ah sanadahaasna waxay kooxdiisu ku guuleysatay 3 koobab oo taariikhi ah. haddaba xidiga xulka qaranka Argentina ee Lionel Messi ayaa rajaynaya inuu kula guuleysto koobka dhagaweynaha ee UEFA Champions League 2 kooxood oo kala duwan isla markaana uu ka caawiyo kooxda ka dhisan caasimadda Faransiiska ee Paris Saint-Germain inay kor u qaadaan koobka Champions League markoodii ugu horeysay taariikhdooda. laakiin waxaynu dul istaagi doonaa isbarbardhig lagu sameeyay Cristiano Ronaldo oo ka walwalsan inuu soo qabtay Lionel Messi tartanka Champions League iyo Messi laftiisa oo dareensan in uu ka faa'iideysan karo Ronaldo ka maqnaanshihiisa koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. waxaan markaa eegi doonaa rikoorka labada nin haddii ay ahaan lahayd gool dhalinta kulamadii ay ku soo bilowdeen, kuwa ay beddelka ku soo galeen, goolasha ay ka dhaliyeen, caawinta ay ka sameeyeen, firikiigyada ama ballaadadka xorta ah, sidoo kale rigoorayaasha ama goolkulaadyada iyo saddexleyda ama hat-triga ay markaa ka dhaliyeen Champions League. waxaan ku hormaraynaa weeraryahanka xulka qaranka Portugal iyo kooxda Manchester United ee Cristiano Ronaldo. CR7 koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League waxa uu ciyaaray 187 kulan. waxa uu safka hore ku bilowday 182 kulan isagoo bedel ku soo galay tartanka Champions League 5 kulan. 140 gool oo Champions League ayuu dhaliyay Ronaldo, waxaana uu caawiyay 41 gool isagoo ciyaaraya koobka dhagaweynaha ee Champions League. 19 gool kulaad ama rigoorayaal ayuu dhaliyay 22 rigoore oo loo dhigay Ronaldo tartanka Champions League. waxa uu sidoo kale Ronaldo tartanka dhagaweynaha ee UEFA Champions League ka dhaliyay 12 saddexley, halka sidoo kale uu ka xareeyay 8 laadadka xorta ah ama free kicks. aynu eegna markan Lionel Messi. xidiga xulka qaranka Argentina iyo kooxda PSG ee Lionel Messi ayaa 158 kulan ciyaaray tartanka UEFA Champions League. waxa uu safka hore ku bilowday 145 kulan. waxa uu bedel ku soo galay Messi tartanka Champions League 13 jeer. 126 gool ayuu ka dhaliyay tartanka koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Lionel Messi
36 caawin ayuu ka sameeyey koobka dhagaweynaha ee UEFA Champions League. Messi 18 jeer ayuu gool u rogay 23 gool kulaad oo lagu abaalmariyay isagoo ciyaaraya tartanka Champions League. 8 ayuu ka dhaliyay tartanka UEFA Champions League. sidoo kalena Messi waxa uu markaa tartankan ka xareeyay 5 free kick ama 5 jeer laadadka xorta ah. haddaba aynu isu eegno labada dhinac. Ronaldo waxa uu ciyaaray 187 kulan tartanka Champions League. Messi waxa uu ciyaaray 158 kulan tartanka UEFA Champions League. Ronaldo waxa uu safka hore ku bilowday 182 kulan, halka Messi uu safka hore ku bilowday 145 kulan. 5 jeer ayuu bedel ku soo galay Ronaldo, halka Messi 13 jeer uu bedel ku yimid tartanka Champions League. Ronaldo 140 gool ayuu ka dhaliyay tartanka UEFA Champions League, halka Messi uu ka dhaliyay 126 gool. 41 caawin ayuu sameeyay CR7 tartanka Champions League. Lionel Messi ayaa sameeyay 36 caawin tartanka dhagaweynaha ee UEFA Champions League. Ronaldo 19 jeer ayuu gool u rogay 22 gool kulaad oo loo dhigay tartanka Champions League, halka Messi uu 18 jeer gool u rogay 23 kulan oo loo dhigay gool kulaad tartanka Champions League. Ronaldo waxa uu tartanka Champions League ka dhaliyay 12 saddexley ama hat-tricks, halka Messi uu ka dhaliyay 8 saddexley ama hat-tricks tartanka UEFA Champions League. Ronaldo 8 jeer ayuu laadadka xorta ah ka dhaliyay tartanka Champions League, halka Messi uu 5 jeer ka dhaliyay laadadka xorta ah tartanka UEFA Champions League. waad ku mahadsantahay inaad nala soo gaartay ilaa gabagabada muuqaalkeena. waxaan ku xusuusinaynaa inaad like inoo saarto muuqaalkan siina gudbiso. waxaan ahay Haarun Yuusuf Qasaaro. intaan muuqaal kale dib